بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaan salaamayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel walba oo ay adduunka ka joogaan. waxaan leeyahay Ramadaan Kariim, kulla caam wa antum bikhair. maanta waa maalin sabti ah, bisha Juun ay 18 tahay 2016 13 Ramadaan 1437 hijriya. waxaan rabaa halkan inaan kala wadaago walaalaha Soomaaliyeed meel walba ay adduunka ka joogaan mashruuc la magac baxay مشروع النهضة في الصومال. مشروع ديبوديسكا صوماليات أيوكم مقدر هاي Renaissance Project in Somalia. وحكا كوبين هاي وحياله في رمضان أيو مشروع حكا كوبين هاي. مركا مشروع ديبوديسكا صوماليات وحاوي لبكون لوية طبعا أيو صوب الأرضي إلى لبكون لباتني تضوى سداس أيو يهي دي اللي يرادو. مركا مشروعاني ومشروع ديبوديس Soomaaliyeed aad iyo aad maaragtay u balaaran, isla markaasna ka hadlaya waxyaalo aad iyo aad u waaweyn oo ummadda anfacaya insha Allah taala. marka waxaan rabaa inaan Soomaalida la qaybsado muxuu yahay mashruucani, muxuu yahay muxuu ka hadlayaa halkuu gaarayaa. intaas ayaan rabaa inaan la qaybsado walaalaha Soomaaliyeed meel walba ay joogaan. haddii aan nahay ummad Soomaaliyeed ee degan qurbaha wadankoodina kasoo fogaaday, waxaa qasab nagu noqotay inaan dhulkayna aan ka fikirno iyo ummadayna aan ka fikirno, isla markaasna aan ugu talagalno ama aan soo curino wax ummadaasi ay ku badbaadaan. إلهي بدبادة إسكاله سبحانه وتعالى. ومضاها إسبدل أي سميان، إسبدل كاسي أما وامد حن أما وامد في عن. وحن جعلنا مشروع عني إنه داليو إسبدل تغيير وحلي هذا إسبدل إنه داليو يعني جعلنا هاي. مركا ومشروع فكري معهن مشروع دقالة لو أرورنا معهن. مشروع مدى العقل وغيره وماهن وحاوي مشروع فكري وأقون علمي كتير سنوي. مركو وحان ربا من أنا بالفسيره أصيغو مشروع عني وكوبي حدونا حلقات أيو كوبي حدونا أما مسلسل أيو نقدونا إسدب الجوغة دي اللي الله يراد سبحانه وتعالى. مركا النهضة وعربي وي. marka dadka badankiisa waxa laga yaabaa inaysan Carabiga aysan garanayn, laakiin maadaama anigu aan wax ku bartay luqadda Carabiga, aan wax ku bartay dugsi hoose dhexe sare jaamacad masaajida xalaqaadka cilmiga aan ka faa'iideystay, ayaan mashruucan ku diyaariyay luqadda Carabiga ayaan ku diyaariyay. marka intii suurtagal af Soomaali ayaan ku fasiri doonaa intii suurtagal laakiin barnaamijka waxa aad iyo aad uga faa'iidaya dadka luqadda Carabiga garanaya oo wax ku bartay ama fahmaya ayaa aad iyo aad uga faa'iideysan kara, gaar ahaan ardada jaamacadaha iyo ardada iskuulada dugsiyada sare iyo dadka indheergaradka ee mufakiriinta ee doonaya inay Soomaaliya ay dib u istaagto, isla markaasna ay ku soo noqoto meeshii ay horay u taagneed 25 sano ka hor. marka waa maxay النهضة waa maxay? dadku qaar waxay isku qasayaan ama isku khaldayaan. magacani ma aha magac cusub, ma aha ama Soomaalida ku cusub, ma aha ama dadka aqoonyahanka ku cusub, ma aha. النهضة ninkii ugu horeeyay ee laga soo gaaray wuxuu ahaa ninka la yiraahdo Malik ibn Nabi. taariikhdiisa waan geli doonaa haddii la yiraahdo xalaqaadka qaybo kamid ah ku geli doonaa. wuxuu qoray kitaabkiisa la yiraahdo Shuruudun Nahda ayuu qoray. Shuruudun Nahda ninkaas ayaa ugu horeeyay. waxaa kaloo ardada
jaamacadaha ay garanayaan inuu jiro taariikhda inay kamid tahay annahda al-Urubiya. Yurub markii ay horumarkii ay gaartay iyo qaabkii ay ku gaartay iyo axwaashii kala duwaneed ay soo martay laga soo bilaabo qarnigii 17aad 18aad 19aad 20aad 21aad. marka horumarka bini aadamku waa horumar soconaya, ma ahan mid meel ku istaagaya ma aha. marka annahda al-Urubiya ayadana waan ka hadli doonaa. Yurub siday ku gaartay horumar siday ku gaartay waa ka hadli doonaa. xalaqaadka qaybo kamid ayaan ka hadli doonaa insha Allah ta'ala. sidoo kale waxaan gaar u daraasay doonaa wadamada Yurub sida ay horumarka ku gaareen. waxaan daraasay doonaa haddii la yiraahdo wadanka Turkiga si gaar ah waa u daraasay doonaa haddii la yiraahdo sida horumarkan uu ku gaaray iyo inuu Soomaaliya u soo gurmado maxaa ku kalifay iyo muxuu damacsan yahay xilligan muxuu damacsan yahay. sidoo kale waxaan ka hadli doonaa wadanka Malaysia sidee horumarka uu ku gaaray laga soo bilaabo muxuu ahaa Mahathir Mohamad qarnigii ama waqtigii uu ra'iisul wasaaraha ka ahaa Mahathir Mohamad. ninkaas waxaa la yiraahdaa al-aaqil fi zaman al-junun ayay u bixiyeen, ninka aqliga lahaa waqtiga dadku ay walnaayeen. marka mashruucan waxaa laga yaabaa inuu sidaas oo kale u noqdo haddii alla yiraahdo. ilaahay waxaan weydiisanaynaa subxaanahu wa ta'ala inuu noo fududeeyo, asiga ayaa awoodda sare iska leh. ilaahay inuuna fahamsiiyo ummadana uu fahamsiiyo ayaan jecelnahay. marka laga yaabee dad badan inaysan qofka mashruuca nahda soo jeedinay inay yiraahdaan qofkan qof waalan waaye, qof ayooba ma aha, lama fahmi karo. dad badan ayaa yiraahdeen waliba xataa waxay isku dayeen inay ka hor yimaadaan ama maaragtay ay yiraahdaan waxaan wax anfacay maane faraha ka qaad. marka annahda maxay tahay? annahda sidoo kaleeto waxaa la yaqaanaa wadanka Tunisia in uu urur ka jiro ama xaraka ay ka jirto la yiraahdo xarakatu nahda Tunisia, laakiin taas ma aha. marka mashruucani ma ahan mashruuc xaraki ama ma ahan mashruuc xisbi ma aha, mashruuc qabali ma aha, ma ahan mashruuc dan gaar laga leeyahay ma aha, waa mashruuc ummadeed waaye. marka waxaanu daraasay doonaa waxaa la yiraahdo oo aanan ka dhex bixaynin oo ku warwareegaysanayna haddii la yiraahdo waxaa la yiraahdo annahda bas kaliya. xisbi ma aha, xaraka ma aha, koox siyaasadeed ma aha, koox qabali ma aha. marka waa barnaamij cilmi ah isla markaasna la doonayo in ummadda Soomaaliyeed ay ka faa'iideysato. marka mashruucani si xalaqaad ah ayuu u bixi doonaa insha Allah ta'ala. marka annahda maxaa la yiraahdaa? annahda waxa waaye waa dib u dhalasho. macnaha af Soomaali markii lagu fasiro dib u dhalasho qowmiyadeed waaye, qowmiyad Soomaaliyeed. waxa waaye dib u curasho waaye, curasho wax aan dhalin ee curta waaye oo kale. waa cusub oo ummad usoo iftiima qaran ummad usoo iftiima. waa kobac ummadi ay samayso oo lagu gaaro qarannimo, lagu gaaro waa qarannimo. marka dadku ma fasir yaqaanaan laga yaabo qofka qaran inuusan garanin waxa loola jeedo. qaran waa ummad kaamil ah waaye oo waxeeda ay u dhameystiran yihiin ayaa qaran la yiraahdaa, oo isku filan dhan walba isku filaasho ka gaartay ayaa qaran la yiraahdaa. marka annahda waxa waaye at-taaqa, waxa la yiraahdo awood aqli ah waaye. marka koowaad ma aha awood tiknoolajiyad kaliya ma aha. annahda waxa waaye irtifaacun bacda inxitaat, markii aad hoos u dhacday kadib inaad haddana sare usoo kacdid. annahda waxa waaye التقدم بعد التأخر، in la hormaro markii dib loo dhacay kadib. waxaa kale culimadu ay ku fasiraan, culamaa nahda waxay ku fasiraan afkaarun xaya fi bi'ati rukud, afkaar nool oo qof la yimaado shakhsi ah ilaahay fahamsiiyey subxaanahu wa tacaala meel rukuud uu ka jiro
oo eber ah oo dantay oo baaba ah oo dagaalo ka jiraan oo dhibaato ay ka jirto caafimaad darra ka jiro waa inaad wax ummadaasi nooleynaya markaad ula timaado ood u sharaxdid ood maaragtay ku tirtirsiisid ood fahamsiisid oo ayagu ay fahmaan markaas kadib ayaa waxaa imaanaya annahda imaanaysa marka afkaarun xaya fi bi'ati rukuud waay afkaarun xaya fi bi'ati rukuud waxay lamid tahay adigoo dad qubuur ku jira kaba soo qaad isku dayay inaad tiraahdo war soo baxa war soo kaca war soo kaca war ka soo kaca inaad tiraahdo taasna ilaahay baa awoodo mooye cid kaloo qof qabri ku jirta cid kasoo saari karta ma jirto ilaahay baa un kasoo saari kara fi yawmi albacthi wannushuur ayay noqon doontaa taas annahda marka waxa waaye waxaa kaloo lagu fasiraa albaxthu fi cawaamil qiyaami alxadaara wa cawaamil alinhiyaar in la baaro la dabagalo la raad raaco waxyaalaha xadaarad iyo ilbaxnimo hormariya oo ay ku istaagto cawaamil xadaaradaasi maxay hoos ugu dhacdaa ummadaha marna kor bay u socdaan sucuud kor bay usii soconayaan sida ummadaha nool oo kale ummadaha dagaaladu ay ka jiraanna hoos bay u soconayaan inhiyaar waxa la yidhahdo hoos wax dumaya waaye marka waxa waaye waa daar la dhisayo oo kale iyo daartii oo la duminayo oo kale inhiyaar marka la baarayana waxaa ulajeedada ay tahay raqibatan fi nahdati lumma ummadani inay mar kale ay soo kacdo ayaa la rajeynaya waxaa kaloo lagu fasiraa annahda lagu fasiraa wathba cilmiya in ummadi ay hesho cilmi aqoon ay hesho weliba aqoontaasi ay tahay kusoo boodo ay tahay idoo aqoonta lagu boodayo la qabsanayo aqoontii baad qabsanaysaa dhexda ku dhegaysaa waxaa kaloo lagu fasiraa muxuu ahaa wathba cilmiya wayba tahay laakin wathba ijtimaaciya arrimaha ijtimaaciga iyo arrimaha bulshadana in horumar laga gaaro sidoo kaleeto in horumar laga gaaro arrimaha dhaqaalaha arrimaha maamulka arrimaha ciidanka xagga fikirka iyo maskaxda in laga gaaro in dhammaan bulshada qeybaheeda kala duwan ay helaan horumar ay helaan laga soo bilaabo xanaano caruureed laga soo bilaabo dugsi hoose dhexe sare masaajid meel kaloo ummaduhu isugu yimaadaan xagga fikirka xagga fanka xagga ciyaaraha xagga nolosha xagga masraxa iyo xagga dhan walba in laga gaaro horumar in laga gaaro marka mashruucani waxa waaye waa mashruuc cilmi ah waaye kuna qotoma cilmiga loo yaqaano muxuu ahaa cilmiga ma ahan cilmi sharci keliya ma ahan culumtu maaha culum sharciya ma aha culum sunna keliya ma aha culum lfiqhi keliya ma aha waa culum soomaalidu isla markaas hadda aysan diraasaynin oo loo yaqaano alculum alijtimaaciya culumta bulshada arrimaha bulshada waa social sense waay waa xagga samheelka luqadda swedishka samheelka waxyaalaha arrimaha bulshada ku tacalluqa waay ay kaga heli karaan ma arkaysa marka mashruucani wuxuu kaloo soo saarayaa ama uu baxinayaa ama uu baarayaa haddii ala yiraahdo mashaakilaadka ummadaha gaar ahaan ummadda soomaaliyeed sida la ogyahana ummaduhu waa isku mid kalama duwana liannahu bini aadam waa hal mar baa ilaahay abuuray subxaana wa tacaala sidoo kaleeto wuxuu raadinayaa mashruucani wuxuu raadinayaa xuluul ama xalkii sidii lagu gaari lahaa ummadda soomaaliyeed sidii xal waara ay ku gaari lahayd ayuu raadinayaa mashruucani wuxuu ka hadlayaa ama la hadlayaa xagga caqliga iyo maskaxda iyo garaadka ayuu la hadlayaa mashruuca dib-u-dhiska soomaaliyeed ma ahan mashruuc daaro iyo wadooyin lagu dhisayo keliya ma aha iyo jaamacada lagu dhisayo marka koowaad waa in garaadka bulshada la dhiso waa in maskaxda la dhiso taasna waxaa isweydiiyey mufakiriin soomaaliyeed
aqoon-yahano Soomaaliyeed, culimo Soomaaliyeed, waxa maalin walbana waa laga hadlaa, waxa idaacadaha iyo TV-yada iyo dood wadaagyada iyo maaragtay waxyaalaha kale oo looga hadlayo waad arkaysaa maalin walba waa laga hadlaa, saacad walba laga hadlaa. marka sidee qofku isbedel uu ku heli karaa daati ah, naftiisa ah, sidee qalbigiisa iyo garaadkiisa iyo maskaxdiisa sidoo qofku bedeli karaa way. marka insha Allah taala mushkilada Soomaaliyeed waxa la yiraahdaa ama arinta Soomaaliyeed ama kulli mashaakil qof waliba wuxuu ka arkaa asiga markaas heerka uu joogo ummadda uu ka joogo mustawiisa ayuu ku fikiraa ama uu kaga hadlaa. waxa la yiraahdaa mushkilad kasta ee ummad ku dhacda waa mushkilad xagga akhlaaqda iyo suluuga iyo dhaqanka ka qabsata. ninka la yiraahdo Axmed Shawqi wuxuu yiri إنما الأمم الأخلاق ما بقيت فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا وإذا أصيب القوم في أخلاقهم فأقم عليهم مأتما وعويلا. ومضاها دمان وحي كل اسمان أما يكور مران أخلاق انت أخلاق ذو أي جرته ويجريسا ومداس ويجريسا هدي أخلاق دي أي تكتو أيضا ويتجيسا هدي لغا جاره أما لغا أصيبه قوم akhlaaqdooda ku dul istaag ayuu yiri adigoo ku ooyinaya tacsina u dhig ayuu yiri tacsina u dhig. marka anagu waan la jirnay ama waan lahayn waqtigii dawladda ama waqtiyadii dawladda ay jirtay markaysa waan lahayn daara iyo waxyaalo wanaagsan waan lahayn. daarihii maxaa burburiyay dulmiga burburiyay waa in laga haro dulmigii burburiyay akhlaaqdii xumeed ee burburisay waa in laga haro. marka dib u dhis Soomaaliyeed ma noqon karo in daar la dhiso kaliya waa in maskaxda la dhiso. sidaas darteed ayaa waxaa yiri nin Soomaali ah oo aqoon-yahan oo qoraa ah oo la yiraahdo Maxamed Daahir Afrax ayaa wuxuu qoray buug la yiraahdo dal dad waaye iyo duni damiir beeshay. dal dad waaye iyo duni damiir beeshay bal kelimadaas markii la dhadhansado maxaa ku soo baxaya? dalka miyaa dad waaye? may dadki way nool yihiin, way joogaan, maalin walbana wax baa dhasha. marka wuxuu ku qoray buuggiisa wuxuu yiri dal dad waaye iyo duni damiir beeshay, Soomaaliya dib mu u dhalan doontaa ayuu isweydiiyey. Soomaaliya dib mu u dhalan doontaa? Maxamed Daahir Afrax qoraaga Soomaaliyeed. marka dad badan marka ninkaas buuggiisa qaabku uu qoray waa qaab cajiib leh. buuggan runtii ma soo gaarin laakiin qoraal yaroon ka helay ayaan akhriyay wuxuun kamid ah. marka wuxuu isweydiiyey qoraagu wuxuu isweydiiyey Soomaaliya dib mu dhalan doontaa waa taas wuxuu isweydiinayo. marka wuxuu yiri waa in la fahmo wiri dib u dhalasho ummad Soomaaliyeed iyo dib u dhalasho dawlad Soomaaliyeed. marka maanta waxa lagu tartamayo ama lagu ordayo waxa waaye sidee xisbi loo helaa, sidee xisbi loo aasaasaa, sidee maaragtay kursi siyaasadeed sidee loo gaaraa way. laakiin ma aha sidee ummad loo dhisaa lagu tartami maayo maanta. marka waa in lagu tartamo ama aad iyo aad looga shaqeeyo sidee ummadi u hormartaa laga soo bilaabo caruurta, dhalinyarada, markaysaa rag iyo dumar, haween, culamaa u diin, bulshada qeybaheeda kala duwan sidee horumar sidee ku gaaraan, sidee dhibaatada Soomaaliya sidee loo xalliyaa. waa kaas ayaa maaragtay marka dadku waxay isweydiinayaan oo Soomaaliya miyaa dhimatay? dhimasho maxaa la dhaamaa haddii maanta garoomada lagaa soo celinayo, haddii maanta baasaboorkaadii uusan shaqaynaynin, haddii maanta calankaadii aad xorriyadda aad ku heshay ausan calamada kale uusan lamid ahayn. waxaa la ogyahay ummadda Soomaaliyeed inay ka kooban tahay ilaa ay gaarayso 10 milyan aan iraado 10 milyan ay gaaraysaa yiri. waddankan Sweden waxa waaye waa 9 milyan ayaa la yiraahdaa. marka ma la isbarbar dhigi karaa baasaboorka Soomaaliyeed iyo baasaboorka Sweden? miyaa la isbarbar dhigi karaa? waa may. ma la isbarbar dhigi karaa baasaboorka Soomaaliyeed iyo baasaboorka Kenya iyo baasaboorka Ethiopia? ma la isbarbar dhigi karaa? waa may. maxaa mujtamacan hoos u dhigay kuwa kalena kor u qaaday?
marka waa in la isweydiiyo Soomaaliya ma dhimatay mase way nooshahay laakiin nolol xayaata leh kuma jirto, nolol sax ah kuma jirto. marka mashruucan arrimahaas ayuu taataaba doonaa haddii la yiraahdo. marka mashruucani wuxuu leeyahay si gaar ah, wuxuu leeyahay astaan u gaar ayuu leeyahay, magac u gaar ayuu leeyahay, hal ku dhig u gaarna uu leeyahay. waan gaari doonaa haddii la yiraahdo, waan ka hadli doonaa qayb un kamida waan barnaamijkeena aan kusoo qaadanayna haddii la yiraahdo. marka mushkiladda Soomaaliya ma la xalin karaa? waa la xalin karaa. mushkiladooyin badan ayaa la xaliyay oo caalamka ka dhacday, waa la xalin karaa haddii maaragtay loo tafaxayto oo ummaddu ay isu kaashato, oo la isu kaashado dibad iyo gudaba maaragtay loo kaco. waa la xalin karaa insha Allah tacaala. waana soo baxaysaa wajigii iftiimayay oo wanaaga badnaay Soomaaliya uu sii bixi doona insha Allah, oo soo bixi doona haddii la yiraahdo. marka waxaan kaloo ka hadli doonaa insha Allah tacaala mashruucani waxaa kamid ah in laga hadlo waxa la yiraahdo xubbul wadan alwataniya, wadaniyad in laga hadlo, wadan jacayl. waxaan ahay wadani, ahyaa wadani ayaa Soomaalidii hore qayb kamid ay dhihi jireen. marka wadaniyadda waa in laga hadlo. maxaa diintu maxay ka tiri, maxay taariikhdu ka tiri, maxaa qur-aanku ka yiri, maxaa sunnadu ka tiri, maxaa culimadii maxay ka yiraahdeen. ayadana waan kusoo qaadan doonaa insha Allah tacaala. xubbul wadan waxa la yiraahdo waan kusoo qaadan doonaa. waxaan kaloo aad iyo aad u faaqidi doonaa haddii la yiraahdo, oon qaada dhigi doonaa haddii la yiraahdo waxa la yiraahdo mushkiladda Soomaaliya maxay sal ku leedahay. waan ka hadli doonaa haddii la yiraahdo. mushkiladda qayb kamida waxa ka hadlay aqoonyahan Soomaaliyeed ayaa ka hadlay oo la yiraahdo Cabdulqaadir Macallim Maxamed Geedi ayaa ka hadlay. aqoonyahan Soomaaliyeed wuxuu qoray book la yiraahdo azmatu Soomaal wa aafaaq i'aadatu al-binaa. marka waxyaalahaas aan aqriyo dhan waxay igu kaliftay in aan mashruucan aan ka hadlo. igu kaliftay. marka qoraaga Soomaaliyeed oo la yiraahdo Cabdulqaadir Macallim Maxamed Geedi wuxuu ka hadlay qoraalkiisa, wuxuu ka hadlay asigoo fasiraya ama faham guud ka bixinaya ma hiya al-azma, mushkilad maxay tahay. azmatu Soomaal maxay tahay. azmatu Soomaal waa laga hadlaa, azmatu al-Ciraaq waa laga hadlaa, azmatu Suuriya waa laga hadlaa, azmatu al-Yaman waa laga hadlaa. waa wadamada dhammaan ay ka dhacaan dagaalada sokeeye ay ka dhacaan waa laga hadlaa. marka waxaa ka hadli kara kaliya dad mufakiriin ah oo aqoonyahan ah oo ayagu cilmigaas baaray oo ku xeeldheer kaliya ka hadli kara. marka azma waxaa la yiraahdaa hiya nuqtatu taxawul fi awdaac ghayr mustaqira. waa in mushkilada ay ku dhacdo ummadaasi, taas oo keenta xaalad deganaansho la-aaneed ee ummadda ka dhigaysa ama ummadda u hogaaminaysa nataa'ij aan marna laga soo weeqsan karin gaarsiinaysa. taas waxay qabanaysaa ama ay ku dhacaysaa, mushkiladaasi waxay ku dhacaysaa ummadda naftirkeeda way ku dhacaysaa, dhaqaalihii bay ku dhacaysaa, arrimihii bulshada ku dhacaysaa, waxbarashadii, diiniyadii, meel walba way gaaraysaa. taasaa marka dambe waxay keenaysaa in dadkii ay kala tagaan oo tafakuk ku dhaco, dadka isnacaan. taas ayaa waxay keenaysaa dadka in isnacaan, kadibna ay u gudubto ummado kale sida deriska oo kaleeto, wadamada deriska ama jaarka nala oo kaleeto. marka mushkiladda Soomaaliya waa mushkilad gaartay meel walba ama oo kamida arrimaha bulshada kamida way gaartay. dhaqaalihii bay gaartay, diintii bay gaartay, arrimihii bulshada gaartay, siyaasadii bay gaartay. marka waxaasoo dhan waxay noqonayaan in maaragtay laga fikiro sidii lagu xalin lahaa in laga fikiro ayay noqonaysaa. waxay noqonaysaa marka sidoo kaleeto in haddana la baxfiyo ama la baaro mujtamacan Soomaaliyeed muxuu arrintaani maxay kusoo gaartay, sababta arrintaani ay kusoo gaartay maxay tahay. waxa waaye fashilku marka uu mujtamaca uu ku dhaco kadib dowladii ayuu ku dhacayaa.
maxaa la yirahdaa marka dawlad fashil maxaa la yirahdaa dawlad fashilantay maxaa keenay in intaasoo mar shirar dib u heshiisiineed loo fariisto intaasoo mar shirar dib u heshiisiin loo fariisto way ogyihiin dadka wax fahamsan way ogyihiin imise mar ayaa dawlada kumeel gaar la dhisay dawlada kumeel gaar imise mar ayaa la dhisay maxay wax u qaban waayeen marka dawlad fashila markii la fasiro dawlad fashila waxa waaye waa dawlad shacabkeedii ayada kulli ay fashilmeen waayo fashilkaasi marka wuxuu ka imaan karaa in nidaam uusan jirin kala dambeyn aysan jirin in ciidamo shisheeye wadanka ay joogaan isla markaasna aysan jirin ciidan awood leh oo qarameed uusan jirin taasna waa lagu fasiraa marka mushkiladaasi marka waxa waaye sidee lagu xallin karaa barnaamijku uu ka hadlaya mashruucu uu ka hadlaya waana gaari doonaa haddii ala yiraahdo wuxuu kaloo ka hadli doonaa mushkiladaha sidee lagu xallin karaa ama azmatu suluuk dadkaani akhlaaqdooda sidee isu bedeli doontaa sidee isu bedeli kartaa haddii mujtamaca uusan akhlaaqda uusan iska bedelin wadankii ma dhismayo dalkii ma dhismayo marka akhlaaqdana sidee loo bedelaa waxay noqon doontaa marka ayadana qeyb kamid ay noqon doontaa haddii ala yiraahdo marka waxaan ka codsanayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed waxaan ka codsanayaa iyo cid walba oo barnaamijkan uu gaaro in ay gacan siiyaan oo caawiyaan hiil iyo hoo ay la garab istaagaan maadaama uu ifinayo wadadii dib u dhiska wadadii dib u heshiisiinta wadadii midnimada ha ahaadaano qurba joog ha ahaadaano dal joog ha ahaadaano dibad joog ha ahaadaano marka insha Allah taala waxaan jecelnahay cilmigeena gaaban iyo caqligeena gaaban inaan ummadda aan ku saacidno wixii aan awoodno insha Allah taala marka mashruucu wuxuu leeyahay hal ku dhig ayuu leeyahay hal ku dhigiisu waxa waaye hal ku dhig waxa la yiraahdaa wixii maanta lagu noqnoqdo ayaa la yiraahdaa oo hal ku dhig noqonayo waxa waaye kun mashruuc noqo adiga qofku waa inuu mashruuc noqdo oo sidiisa waa inuu mashruuc inuu yahay uu u asaasan yahay waa inuu ku fikirayo inuu mashruuc yahay ummadda wanaag soo gaarsiin kara marka kan labaad waxa waaye haddii mashruuc aadan ahayn noqo mid mashruuc asaasi kara noqo asis mashruucan mashruuc asaas ummadda anfacaya caafimaadka wax ka taraya waxbarashada wax ka taraya dib u heshiisiinta wax ka taraya asaas meel walba looga baahan yahay oo Soomaaliya joogto haddii mashruuc aadan noqon karin midna aadan asaasi karin mid taageer mashruuc socda taageer idcam mashruuc taageer mashruuc socda hili hoo la garab istaag marka taageer afi adin ku taageer mashruucaas hadduu yahay mashruuc khayri oo ummadda anfacaya hadduu yahay marka waxa waaye kun mashruucan asis mashruucan idcam mashruucan taageer ولا تكون رابعا كان أفرادها نقولن وحبا عن هين تأيي بقى مدنا معه ومدك اللي يرادوه مركا هدي اللي يرادوه مركا مشروع عن سيداس أيو ديجين هاي أما قابكاس أيو كبحي دونا هدي اللي يرادوه وأنا حنا قدونا سيدا هراء عندك وشيء حلقات ومسلسل أيو نقدونا أو قيب كميدا وتاريخ أيو نقانيسا قيب كميدا وحين نقانيسا فهم لا فهمه أرمها بلشدة أم علم الاجتماع لا فهمه ينقنيسا هدي اللي يرادو مركا سيدي سكلا مشروع وحقوق على بحيا على باقي بضواي وقيب فكري هي قيب جرجار واي قيب جرجار أو مد لو جرجارية أو فن ريزن لو سمينايو واي جارهان لا تاجيريو حرور أجونا لا تاجيريو مشروع عص أو ككوبن ما أركيسا إن وحلا برو ويران dhowr kun oo arday Soomaaliyeed oo aqoon ah in wax la baro wixii markaas aan ka awoodno mashruuca sigana waa qayb kamid ah ayuu noqon doonaa marka Ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu yiri walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ila hin Ilaahay wuxuu idin siiyay subhanahu wa ta'ala dhulka ayuu idin siiyay inaad noqotaan kuwa camira inaad noqotaan oo dega oo
aad idiin noqoto meel aad degtaan iyo meel aad ku raaxaysataan ilaa waqti inta laga gaarayo. sidoo kaleeto aayadda qur-aanka ah alam najcal al-arda kifaatan axyaaan wa amwaatan, dhulka miyaanan ka yeelin, dhulka aan degannahay dhulka aan degannahay miyaanan ka yeelin meel idin celiso idin haysa nolol iyo geeriba. marka qofka Soomaaliyeed dhul wuu haystaa, dhulkeena markii juqraafi ahaan waa dhul aad iyo aad u ballaaran. ilaahay wuxuuna siiyey dhul barwaaqo ayuuna siiyey, waana nagu filan yahay nolol iyo geeri waa nagu filan yahay. haddaad noolaataan dhulkaada inaad ku noolaatid, isla markaasna aad tacbatid, aad ku dhex noolaatid, risqigana ilaahay meel walba ilaahay uu dhigay. sidoo kaleeto marka aad dhimatana in asiga lagu aaso wax ka fiican ma jiraan. marka insha allahu tacaala qaybtii koowaad intaa ayaan kusoo gabagabeyneynaa. ilaahay waxaan weydiisanaynaa subxaana wa tacaala in ilaahay noo fududeeyo, ilaahayna noo yasiro oo noo fududeeyo. waa mashruuc aad iyo aad u ballaaran oo hal qof uusan awood u lahayn inuu maaragtay uu soo gudbiyo ama uu garabka saarto. waa mashruuc loo baahan yahay inay dad fara badan, mujtamac xoog leh ay ka qayb qaataan, aqoon-yahan uu ka qayb qaato, culamaa diin ay ka qayb qaataan, indheergarad rag iyo dumar ay ka qayb qaataan. ma aha mashruuc hal qof keliya uu la soo istaagi karo, banaanka lasoo bixi karo ma ahan. marka insha allahu tacaala waxaan rajeynayaa in mashruucu uu noo socon doono haddii la yiraahdo. aad iyo aad umahadsantihiin. asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatuh.